أحمد بلي waxaa tahay mas'uulka soo qaban qaabiye liiga ka socday garoonkani lagu magacaabo Macalin Boro ama Olympic Stadium waxyaalihii intii uu socday liiga maxaa ka xusi kartaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa maalle ومانت نوسو gabagabay liig soo socday muddo bil iyo bar ah liigaas wuxuu ahaa liig site xamaas badan liig wuxuu ahaa saan umaleynaa intaan xirada joogay kubadda cagta aan ku milnay in liig ugu wanaagsan inuu yahay aan umaleynaa waayo liigaas wuxuu ahaa liig group stage ka aan la saadaalin karin waxa soo baxaya ciyaarihii ugu dambeeyay waxaa arkaysaa koox hal dhibac leh hal ciyaarna u hartay ciyaartii ugu dambeysay marka ay aadeen rajaleed liigan waxaan ku arkay ciyaariyahan badan oo ka qayb qaadanaya waxa uu ahaa liiga ugu weyn oo ay ka qayb qaataan dadka ajnabiga ah iyo dadka dhalinyarada yar oo daayirta ah alxamdulillahi rabbil caalamiin liiga hadda nabad ay ku dhamaaday 16 koox ayaa wada ciyaartay waxaa soo gabagabay maanta ciyaartii kama dambaysta ahayd finalka waxaana ku guuleystay kooxda la dhahay Celtic waa koox daayir oo hadda soo bixayso alxamdulillahi rabbil caalamiin saas ayay ku dhamaatay liigi maasha Allah marka liigan qabanqaabadiisa yaa kugu dhiirigeliyay okay liigan qabanqaabadiisa waxa uu dhiirigeliyay horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay maad u sugnaatay waxa dhacay horta maalin ayaa waxaan nala aadiyay team xul ah oo liig kala qaaday waxa la aadiyay dhab waa ku soo ciyaarnay hay'adihii samafalka ayaa na waday waxaan kala soo kulnay kulliit waa ognahay wax la bixiyay meesha kala kulnay daryeel aad u liita ayaa meesha kala kulnay aniga marka waxa uu kalifay in liiga hamiga allahay wuxuu ahay in aan dhalinyarada baro in ay ayaga wax qabsan karaan ayaga istoosin karaan ayaga heer gaari karaan ayaga ay noqon karaan dad isku tashtay waxa kale oo hadafkayga labaad uu ahay in aan bulshada garoomaha qalalan aan ku soo celiyo oo garoomihii aan ka dhigo kuwo jaam galaysan kubadda cagta xamaasadeeda aan soo celiyo waxaa kaloo hamigayga uu ahay in muqaadaraadka iyo maandooriyaha aan yareeyo waqtiga la aadi lahayna aan mashquuliyo dhalinyaradii sifa aan ugu mashquuliyo garoomihii iyo kubadda cagta dadku waxay u badnaayeen dad daawanaya ee dad ciyaaraya garoonkana waa u weedeen sidoo buuxsamay inta badan waxaynu la soconay in guddiga isboortiga xirada qaxootiga Digaxley oo kaliya ay liigyo qabtaan isla markaana ay bixiyaan abaalmarino fara badan marka guddiga isboortiga xirada qaxootiga ee Digaxley xiriir intee la eg ay la leedahay horta haddii lagu dhaho guddiga isboortiga ee Digaxley waa laandheer anigana waxaan ahay shakhsi guddiga isboortiskana waa dacana silsilad dheer oo sports chairman uu ku jiro oo assistant secretary dad badan ay soo sagaan waa laan madax banaan oo weyn oo ciyaartoyda ay hoos tagaan anigana waxaan ahay nin shakhsi ah oo dhankiisa u madax banaan laakiin ka duulaya horumarka dhalinyarada inta badan guddiga isboortiga iyaga qaban jireen waxa loo yaqaan raadi abaalmarin bixin jiray adigana liigan inta uu socday oo maanta la soo gabagabeeyay waxaynu aragnay abaalmarino fara badan oo aad guddoonsiisay cid walba siday ugu qalantay marka yaa ka saaciday abaalmarinadaas aad bixinaysay iyo dadka aad guddoonsiinaysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta ayaa maalle saad ogeedeen liigan wuxuu ahaa liig an official iyo wax kalkaaliye ah ama aniga garab taagan aysan jirin waxaan u joojiyay officialska iyo gacmaha badan ama indhaha badan waxay ahayd in aan dhalinyarada tuso anigoo shakhsi ah inaan wax qaban kara waxyaabo badan baa soo dhacay dhalinyarada wax kasta laga kulmaa laakiin maanta hadda jareexa iguma yeesho wax dhibna hadda ma qabo liigina waa soo dhameeyey waana u dhabar adkaystay wax kasta oo qayli ah ay aflagaato isbedel waxyaabo badanna waa jiraan liigan inuu fashilmo intaasoo jeer ayaa la isku dayay waan u dhabar adkaystay laakiin hadda ugu dambeyntii liig wuu soo guuleystay alxamdulillahi rabbil caalamiin anigana iyo bulshadii kalena waan wada faraxsannahay maantana waa laga soo qayb galay ka qaybgalka iyo qayb qaadashada waa dareemi kartaa iyo xamaasadda iyo kulley hididilada liiga uu ahay waa dareemi kartaa iyo shucuurta bulshada Axmed Bile Ruuso adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay channelka Faaliyaha Dhadhaab maxaad ugu baaqaysaa bulshada isboortiga ama bahda isboortiga ay ku daawanaysa bahda isboortiga waxaan ugu baaqayaa khaasatan bulshada dhalinyarada ah
waxaa jira horta tixan u tiriyey dhalinyarada laakiin insha Allah dib ayaan ka soo sheegi doonaa aan ka soo tabin doonaa tixdaas insha Allah channelkeena ayaan la soo wadaagi doonaa dhalinyarada waan jeclahay waxaan ahay dhalinyarada سائدنا وحنو جعل عندنا اليرادة ما نكلا سوعي نوع كسوعات هذه أجنبي تهاي يعطي كلا اليرادة وحاوي دكتور أنيقا متى أنيقا إلى متى هنا دكتيجا اليرادة ده أهان لين أنيقا ورت الصوم علينا نورشي ده هاف كذا فرحة ده وما نالت اليرادة وحاي أكتي دكتهاي قعدتي دميدك أم أغليجا بركيس مركا اليرادة ayaan sababtooda u qabtay diiga aad buu maasan yahay kaasina wuxuu ahaa Axmed Bile oo ku magac dheer Dhuuso lijan hore isla markaana xirada qaxootiga dhagaxlii ciyaartooyda ka ciyaarta garoomada iminka ku jirta kamid ahaa waxa uuna dhigay liigi ka socday garoonka Macallin Borow ama garoonka loo yaqaano Olympic Stadium isagoo garbihiisa ay taagnaayeen saaxiibadiisa Bagiif iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Sagaaray iyo dhaqtarka waa maasantiin